Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu dhammaan dhagaystayaasha daawadayaasha ku xiran janaalka Caaqil Yacko waan idin salaamay salaan kadib waxaan doonayaa maanta inaan bilowno xubin gaar ah oo ka madax banaan barnaamijyadii aad horay u aragteen waa xubin kale oo ah qisooyin ayaan soo gudbin doonaa tiradooda ma qiyaasi karo intay ku ekaan doonaan balse waxaan isku dayayaa in aan soo qaato qisooyinka aadka u xiisaha badan qisooyinkaasi maahan kuwa aan been abuurtay maahan kuwa aan meelal badan ka soo qaatay waa qisooyin dhab ah oo dhaceen oo xaqiiq ah qisooyinka maanta ayaan bilaabaynaa qisada ugu horeysa ciwaankeedu wuxuu yahay odaygii caaqilka ahaa iyo wiilkii boqorka qisadatan ayay waxay ka dhaxaysaa oday iyo boqor uu dhalay wiil qisada ayay waxay u dhacaysaa sidatan nin boqor ah ayaa damcay in wiilkiisa uu ku wareejiyo xukunka boqortinimada wuxuu u geeyay oday caaqil ah si uu usoo fahansiiyo xukuumadda boqortinimada una u soo baro sida loo xakameeyo loo ilaaliyo shuruucda ku xandhaaban boqortinimada wiilkii yaraa markii loo geeyay odayga uu hayay wuxuuna baray qodobyadii aan soo sheegnay badinkood iyo kuwo kale aanan la soo koobi karin balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii yaraa odaygii uu garaacay wuxuuna ku garaacay bilaa xaqdaro isagoo aanan wax samayn ayuu garaacay wiilkii yaraa ee boqorka uu dhalay wuxuu qaaday cadowtinimo wuxuu damcay in uu odaygan dilo markii uu noqdo boqorka oo lagu wareejiyo xukunka boqortinimada maalinkaas wuxuu u qaaday cadowtinimo balse nasiib darro muddo maalmooyin kadib waxaa geeriyooday boqorkii markii uu geeriyooday wiilkii ayaa waxaa lagu wareejiyey xukunkii boqortinimada markii lagu wareejiyey xukunkii boqortinimada ayaa wiilkii ciidamadiisa faray in ay soo qabtaan oday meel ayuu ugu tilmaamay oday halkaas iyo halkaas joogo hali ii keeno ayuu ku yiri ciidamadii nasiib darro waxaa si degdeg ah lagu soo qabtay odaygii isagoo la wado ayaa la horkeenay boqorkii yaraa ee lagu wareejiyey xukunka xilligaas markii la horkeenay odaygii caaqilka ahaa ayuu wuxuu weydiiyey boqorkii yaraa maxaad maalin dhoweyd ii garaacday anigoo aanan waxba kaa samaynin odaygii caaqilka ahaa ayaa waxa uu yidhi maalinkii aan ku garaacay maxaad dareentay maxaadna ii qaaday wiilkii boqorka ahaa ayaa waxa uu yidhi maalinkaas waxaan kuu qaaday niyadda waxaan ka idhi markii aad boqor noqoto ayaad ka aarsan doonta waxa uu kugu sameeyey odaygan odaygii caaqilka ahaa ayaa waxa uu yidhi maalinkaa waxaan kuu garaacay in aan ku tusiyo xanuunka ay leedahay dulmiga wiilkii mise boqorkii ayaa ilmeeyey markaas buu jilba jabsaday wuxuuna ku yidhi macalin iga raali noqo waan kaa qaldamay macalinkii ayaa waxa uu yidhi maya ardaygayga wanaagsan ayaa tahay waadna i xushmaysaa anna sidoo kale boqorkii yaraa ayaa waxa uu yidhi macalin ma ii samayn kartaa codsi odaygii caaqilka ahaa ayaa waxa uu yidhi waa maxay ii sheeg wax walba aad doonto waan kuu samaynayaa boqorkii ayaa waxa uu yidhi waxaan rabaa in aad noqoto la taliyahayga qaaska ah ee xukuumadda odaygii ayaa waxa uu ka aqbalay in uu noqdo la taliyihiisa qaaska ah muddo maalmo markii la joogay ayaa odaygii waxa uu yidhi waxaan rabnaa maanta in aan soo booqano shacabka sida ay ku sagan yihiin in aan soo indhayno subaxii ayay baxeen waxa ayna ku soo wareegeen ay ku soo dawaafeen shacabkii ay madaxda u ahaayeen
sidii ay u socdeen ayaa gabalkii dhacay, micnaha haween baa la gaaray. iyagoo wadadii kusoo socda ayay wadadii geeskeeda waxay ka arkeen habeenay iyo ciyaal wada ciyaarayaan, dabna ay ka sheegan yahay agtooda. boqorkii ayaa raashin iyo waxyaabo ay wadeen u keenay islaantii meesha joogtay. habeenaydii ayaa u mahad celisay boqorkii, waxayna ku tiri waad mahadsan tahay, balse ma aysan ogeyn iyada in ninkana uu yahay boqorka magaalada. markaas bay tiri dadka madaxda inoo ah nagama warhayaan oo sariirtooda ayay iska jiifaan, anagana sidan ayaynu nahay. wiilkii mise boqorkii ayaa waxa uu rabay inuu u sheego inuu yahay boqorka magaalada, balse odaygii ayaa qabtay oo u sheegay inuusan u sheegin inuu yahay boqorka. markii waagii uu baryay ayaa waxaa amar degdeg ah lagu bixiyey in islaantaas meesha joogto guri loo dhiso, cunto ku filanna loo geeyo. odaygii ayaa boqorkii weydiiyey, markaasuu wuxuu ku yidhi ka waran maxaad soo aragtay intii aan soo wareegnay? markaasuu wuxuu yidhi waxaa iga yaabisay islaantii hadalladii ay ku hadlaysay. odaygii ayaa waxa uu yidhi waa runteed, waayo dadka madaxda ah kama warhayaan shacabkooda xaaladda ay ku sugan yihiin. marka waxaan rabaa in aad iga ballan qaado in aad ka warhayso shacabkaada inta aad tahay boqorka, amise aada hayso xubin ka mid ah xubinta dowladaha mise boqortinimada. wiilkii mise boqorkii ayaa waxa uu yidhi waayahay macalin, waad igu ogtahay in aan ka warhayo dadka. qisada ayaa intaa ku eg. qisada waxaan ka faa'iideynaa kow inuu dulmiga aanan wanaagsanayn, waayo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi xadiis nabigiisa uu yidhi sallallahu calayhi wasalam, allah dulmiga wuu iska xarimay, adoomadiisna waa laga xarimay. xadiis kale wuxuu ahaa dulmiga waxuu yahay dulumaadka yowmalqiyaame. xadiis sidaas dhahayay ayaa jiray. xubinta koowaad aan ka faa'iideyna qisadu waa taa dulmiga in uusan ahayn wax wanaagsan. labo, waxaan aan ka faa'iideynaa haddii aan noqoto mid xukuumad hoostaga in aad ka warhayso shacabkaada xaalada ay ku sugan yihiin. qisadayni ayaa intaan kusoo koobaynaa. qisada waa faa'iidooyin badan oo aan hadda soo koobi karin baa ku jiray, balse qisada ayaan intaan ku akeynayaa. qisada xigta intaan ku kulmi doono waxaan ahay caaqil yacko, adinkuna waxaad tihiin daawadayaasha barnaamijka. ogow haddii kugu cusub tahay qisadan subscribe like, haddii aysan kugu cusmayn mahadsanid.